وبقولال كميدا أردادا iyo culimada masjidka jaamacatu Raqay ee magaalada Dhuusamareeb oo isku soo baxay siyaarada Sheekh Cali Samatar oo sanadkiiba mar lagu qabto gobolada dalka Soomaaliya Allah u naxariistay Sheekh Cali Samatar oo ku aasan deegaanka lagu raqsay gobolka Mudug ayaa sanad kasta marka la gaaro bishan Rajab siyaaradiisa lagu qabtaa gobolada dalka Soomaaliya iyo dalka dibadiisa xuska siyaaradan Sheekh Cali Samatar oo lagu qabtay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxa ka qayb galay culimo u diin ka kala yimid qaar kamid ah gobolada dalka Soomaaliya arday iyadoona qadka telefoonka dalka Turkiga uga qayb galay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ahaa madaxii hore xukuumadda Galmudug khidmada diinta islaamka ah si loogu daydo waa muhiim caawo leeto mashaayikhdii waaweyneed arrinka ogaalka xogogaalka waahayna waa joogaan xaadir weeye ilaahay cumrigooda noo dheereeyo cibaadaha ku qurxiyo in laga faa'iideysto waa fursad oo dadka aan la kulmin sheekhay mashaaikhdii ka dambeeyay aan la kulmin laakiin kuwa hadda jooga la kulmay waa dhaxal kala dhaxal haya taariikhdu qof walba diinkan qof buu ku dhaafaya ilaa qiyaamada saasa la isugu dhaafin mana zuulahayo ilaahay subxaanahu wa tacaala daa'ifada xambaarsan wuu u gargaarayaa marka ikhwatal kiraam ilaahay haydi nooliyo waa xus wanaagsan oo weyn oo maqaam aad u weyn ka dhacaya maqaamkii tilmiidkii sheekha marka sheekha Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim radiyallahu anhu wa ardaah ilaahay akaraad noqdo haraali geliye ziyaaradii Sheekh Cali Samatar ayadoo mid ugu weyn ay ka dhacayso marqabkiisii oo lagu raqsay yaa haddana amaakin caalamka kamida lagu xusaya meelaka kala gedisan lagu xusaya xaqooda dharafta leh ee ka dhacaysa qaranadii sheekheena Sheekh Yuusuf iyo masjidkii weynaa ee Raqada ee ay ka soo qayb galeen ummadda qaybaheedii kala gedisnaa mashaayikhdii waaweyneed oo ajillada ahaydna ay hogaaminayaan kasoo qaybgalka laga soo wada qayb galay waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay ridihiisa inaan ku gaarno ilaahayna oo nagu xureeyo dambi dhaaf iyo maqfirana ilaahay nagu siiyo cidkii caynuraxma ilaahay nagu siiyo cibaado suuban ilaahay nagu siiyo camalkeena maqbuul ilaahay ka dhigo taas ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala ziyaarada sheekhu waa tawassul maadaama uu khaadim u ah diinka ilaahay yaa asagana loo khidmaynayaa oo ilaahay aan ugu tawasulaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala amdaadiisa na siiyey anwaartiisa diinka sida ugu khidmaynayana يا رب Sheekh Cabdullaahi Sheekh Maxamed oo kamid ahaa culimadii ka qayb gashay xuskan ayaa ka sheekeeyay qaar kamid ah taariikhdii Sheekh Cali Samatar bin Samatar bin Xasan bin Cabdille bin Muhammad bin Yuusuf bin Kulbayr bin Muhammad Amal bin Maalin bin Suge bin Kalwaad bin Hintile bin Samador bin Waxadsame bin Maxamuud Hiraab bin Daame bin Gorgaate bin Sheekh Xaawiye intaas kadib waa la yaqaan الدودبلي نصبا الشافعي الأشعري القادري القرقسي مرقدا هو يديس وحالده يصير سموضة بنت جامع بن فارح دلاشدا شيخو يمشو كو برباري
iyo qur'aanka barashadiisii wuxuu ku dhashay oo ku barbaaray naaxiyati xarar dheere alwaaqicati fi saaxil almanaadiq alwustaa gobollada dhexe xeebta gobollada dhexe ee Soomaaliya oo ay ku nagayd usrada shiikhu ay markaas deganayd naaxiyadaas shiikha lagu dhalay waxaa la dhalay sanadka hijriga 1311 hijrada shariifada calaa saaxibi afdal salaati wassalaam